Baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqda mid aanay dhaqan ahaan isbedelin, waxaase kaliya isbedelay dadka qaarkood marka loo fiiriyo teeramkii hore. Ku dhawaad 20 xildhibaan ayaa laga ganaaxay imaatinka fadhiyada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya markii ay isku dayeen inay hor istaagaan furitaanka golaha uu shir gudoominayay Gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa ka mamnuucay ka qaybgalka fadhiyada golaha xildhibaano sabab la xiriirta amniga sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska Gudoomiye Aadan Madoobe. Aadan Madoobe ayaa guddiga xeeroosaadka ee golaha waxa uu ka codsaday inay soo gudbiyaan talab bixin iyo talaabooyin ku habboon xubnahan si waafaqsan xeeroosaadka Golaha Shacabka. Warqadda uu soo saaray Gudoomiye Aadan Madoobe ayaa u eg warqad hore uga soo baxday gudoomiyihii isaga ka horreeyay oo looga mamnuucayay ku dhawaad 15 xildhibaan xilligaasi oo ayaguna buuq ka sameeyay Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya. Saaxiibada caalamka ayaa badi Soomaaliya waxa ay ku dhaliilaan in kaliya dadku qaarkii ay isbedelaan balse ficilada siyaasadeed aanay waxba iska bedelina. Buuqa hareeyay Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayay sheegeen xildhibaanada mucaaradka inay gaarsiin doonaan saaxiibada caalamka waa beesha caalamka waxaana ay sheegeen in had iyo jeerba Gudoomiye Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe aanay shir gudoomin doonin kulanka golaha waxayna sheegeen in aanay xaq u lahaynba inuu shir gudoomiyo. Ma banaana ayay yiraahdeen in gudoonku uu shir gudoomiyo Aadan Madoobe haddii mooshin laga gudbiyo waxaase muhiim ah waajibna ah in uu shir gudoomiyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya. Muddooyinkii ugu dambeeyay isqabqabsi xoogan ayaa ka taagnaa Golaha Shacabka waxayna arintani soo bilaabatay kadib markii dowladda uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh ay ansixisay wax ka beddelka dastuurka 4 cutub taasoo sabab u noqotay in ay gadoodaan xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka si la mid ah maamulada dalka ay saluug ka muujiyaan wax ka beddelka dastuurkaasi. Dastuurka ayaa loo arkaa inuu yahay shaati uu tushay madaxweyne Xasan Sheekh waxayna xildhibaanadu sheegeen in aanay raali lagu wada ahayn sidaasi aawadeedna aysan waxba soconaynin haddii ay dowladdu iska indhitirto ficilada ay u qaadayso dhanka dastuurka. Dhanka kale Gudoomiyaha Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa horey u sheegay in mar kale xeeroosaadka Golaha Shacabka ay indhayn ku sameeyaan xilka xayuubintii lagu sameeyay xildhibaan Abiib oo ka tirsanaa Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha